badan ayaa waxay tahay qisadani waa qiso dhab ah oo xaqiiq ah oo ka dhacday mid ka mid ah magaalooyinka dalka Mareykanka. Waa sida ku qoran meeshan ka soo xiganayay. Dhacdadani waxay bilaabmatay Sahra markii ay da'deedu ahayd 18 sano. Waxay waqtigaasi nolol caadi ah sagala nooleed labadeeda waalid iyo walaalkeed Harry iyo sidoo kale walaasheed Hana. Sahra waxay ka mid ahayd dadka xiiseeya mawaadiicda ku saabsan arrimaha jinka iyo cabsi-cabsida. Waxay inta badan aad u akhrin jirtay qisooyinka ku saabsan arrimaha cabsi-cabsida iyo jinka. maalin maalmaha ka mid ah subax arooriyaad ayaa waqti hurdadii ka soo toostay waxay aragtay taleefankeedii oo loo dhigay fariin aad uga argagixisay. caadooyinka Sahra ayaa waxa ka mid ahaa waqtiyada ay subaxii hurdada ka soo toosto taleefankeeda ayaa isaga yara isticmaali jirtay balse waxay ku soo toostay maalintaasi fariintan la yaab ka badan. fariintan ayaa waxay odhanaysaa: Sahra, waxa aan doonayaa inaad iyaar guddo sababtoo ah waxaad tahay shakhsiga kaliya iyaar gudi karaya. gabadhii oo ay wejigeeda ka muuqato cadho aad u badan ayaa waxa ay tidhi oo kuma tahay adigu. markaas ayaa waxa uu ugu jawaabay: muhiim ma aha inaad ogaatid ciddaan ahay balse haddii ay adiga muhiim ku tahay waa aan kuu sheegayaa. anigu waxaan ahay dulmane muddo 4 sanaha ku jira qabriga. qof ayaa si sabab la'aan ay dilay aniguna wax dhiba u geysan balse dhibta jirta ayaa waxay tahay boolisku dhimashadeedii waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid shil ah. waxaanan adiga dadka oo dhan kaaga doortay inaad xaqayga ii soo ridid. intaasi markay akhriday ayaa Sahra intay aad u qososhay gabar saaxiibadeed oo garab fadhiday ku tidhi: feeri, qofkani waxa uu doonayaa inuu iga cabsiiyo. kolley waa mid ka mid ah gabdhaha saaxiibadeen oo doonaya inay iga cabsiyaan balse anigu waxyaabaha noocan oo kale kama cabsado. Sahra oo gabadhii saaxiibadeeda arrintan uga warbixinaysa ayaa waxa soo galay message kale oo degdeg ah. message-ka ayaa waxa ku qornaa: ma ogoli fariimaha kuu soo diro inaad cid kale u akhrido. Sahra ayaa xoogay yara cabsatay. intaasi kadib lambarkii ay fariimuhu ka soo gaadhayeen ayay si degdeg ah isaga xidhay blog u saartay. subaxnimadii dambe ayaa Sahra waxay u soo daadegtay si ay ula qoraacato waalidiinteeda. deetana waxay waalidiinteedii uga warbixisay dhacdada iyo fariimaha soo gaadhay. deetana aabaheed ayaa waxa ku yidhi: aabbo ha cabsanin, waxbana ha ka soo qaadin waxyaabaha noocaas, kolley waa dad doonaya inay kaa cabsiiyaane. Sahra maalintaasi si iska caadi ah ayay nolol maalmeedkeedii isaga gudatay sababtoo ah awalba waxyaabaha noocaasi oo kale kamaysan baqi jirin. iskuulkii ayay si degan isaga tagtay balse markii ay ka soo laabatay ayaa iyadoo saaxiibadeed la sheekaysanaysa waxa taleefankeedii ku soo dhacay fariin. taleefankeedii markay furtayna waxay ogaatay fariintan inay ka soo gaadhay isla lambarkii ay fariimuhu ka soo gaadhi jireen. fariinta ayaa waxa ku qornaa: Sahra, maxaa sidan iigu samaynaysaa? maxaad lambarkayga baloogu saartay? haddii aad si kasta isaga xidhid ood baloogii saartid arrintaasi ma aha mid iga hor istaagaysa inaan fariimo kuu soo diro. Sahra ayaa arrinkii aad ula yaabtay oo isweydiisay: sidee suurtagal ku noqotay lambarkan shalay iska baloogareeyey in isla lambarkiian iska baloogareeyay liiga soo diro fariin? waxay ugu jawaabtay: yaa tahay, maxaad sayga rabtaa aniga? markaas ayaa waxa ugu jawaabay: Sahra, waxaan kula hadlayaa baradii u dambaysay. sidii aan kuu sheegay ma yeeli oo ma ii argudi. Sahra weli waxay aaminsanayd inuu mid ka mid ah asxaabteeda uu ku sameynaya prank amba toocsi. deetana waxay ugu jawaabtay: haddii aad tahay shakhsi saaxiibkay ah isla markaana doonaya inuu iga toocsado ama iga ruwadaysta, fadlan iga jooji sababtoo ah kaftankaagani ma aha midaan u bogay. fariin soo dirihii ayaa waxa ugu jawaabay: oo weli ima rumaysansid miyaa? fiiri dhismaha kaa dambeeya. Sahra goobtay waqtigaasi taagnayd oo ahayd iskuulkeeda garabkeeda waxa ka dambaysay ama baan idhaahday ka dambeeyey dhisme qadiim ahaa oo laga guuray. markii uu sidaasi ku yidhi shakhsigii ayaa Sahra waxa ay fiirisay dhinacii dhismaha misana waaba qof dhar madow xidhan oo gacanta u haadinaya. Sahra ayaa gabadhii saaxiibteed ee garab taagnayd waxay ku tiri: fiir, shakhsigaasi dhismaha agteeda taagan ee gacanta inoo haadinaya. saaxiibteed ayaa fiirisay balse waxay ku tidhi: saaxiib, waxba aanu meesha ugama jeedo. deetana fariin ayuu taleefankeeda ugu soo diray oo uu ku leeyahay: Sahra, waxba ha istaaginin. qofkani kaa dambeeya eed arkaysid cidaan adiga ahayni ma arki karayso. intaasi kadib Sahra waxa soo food saartay cabsi badan. waxay isku dayday inay saaxiibteed ka dhaadhiciso inuu qof halkaa taagan yahay balse saaxiibteed ayaa waxay ku adkaysatay inaysan waxba u jeedin, ay arkayso oo kaliya dhisme. intaasi kadib Sahra waxa ay go'aan ku gaadhay inay shakhsigan iska dhagatirto inuu wax jawaab ah siinin message kasta uu soo diro. dhowr maalmood ayay iska dhagatirtay inuu wax jawaab ah siinin. dhowrkaasi maalmood maseejyada ayaa iska soo daba dhacdhacayay balse intay akhrido unba iska xidhayso oo maysan jawaabayn. balse maalin maalmaha ka mid ah ayaa Sahra waxa soo gaadhay message digniin ah oo odhanaya: Sahra, berri waxaan ku tusi doonaa digniintii u horreysay ee bal waa sidaad yeeli doontid. message-kii markay akhriday ayaa xoogay qalbigeedii waxa galay cabsi. haddana dib ayay iskula hadashay oo waxay tidhi: kolley waa qof beenaala ah oo doonaya inuu cabsi geliyo. subaxii dambe Sahra waxay ku soo toostay nabad qab. si caadi ah ayay iskuulkeedii isaga tagtay fasaxaadiina ay la kulantay gabadhii ahayd saaxiibadeed. daawadayaal waxa muuqata qisadu inaynu muuqaalkan gudaheeda ku dhammaanayn, sidaasi awgeed waxaa habboon inaan 2 qaybood ka dhigno, qaybtana iminka daawataan inta qaybta kale la soo dhamaystirayaba. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan soo dhamaystirno insha Allah. aad ayaan uga hafeefanaynaa inay qisadu kala badh noqoto balse dhamaystirkeeda waxay naga xiga wad oo kaliya.
haatanna intaynu qaybta xigta isugu iman doonnaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu